gudida qabanqaabada shirka Khaatuma qaybtiisa labaad oo la damacsan yahay in bisha soo socota bartamaheeda lagu qabto gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayay gudida kormeerkoodii ku soo gabagabeeyeen degmada Kalabeyd oo dadka waqooyi ka xigta magaalada Laascaano xaflada siyaasada loo soo agaasimay kula yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan deegaanada ay kamid ahaayeen Yeyle Eegaag Woodward iyo Kalabeyd ayaa waxa hadaladii xafladaas kamid ahaa halkani waxa weeye Woodward waa goobkii Woodward taariikh dheer bay leeyihiin oo aad u dheer shirar badan baa lagu qabtay boqorro badan ayaa shiray qolooyin ka socdaan baa la haba shiray qolo kasta waxay doonaysay inay guul ay uun gaadho laakiin si geertidii lagama hadhoobay waa shiraynaa ilaa danteedna gaadho taasi waa mid annagu maamulka maan tirsanin reer Somaliland ma nihin reer Puntland ma nihin xisbi kamaan tirsanin qolooyin ana shigaan doorin jiray SSC iyo wixii oo dhan oo la isku wada daray oo dhulbahantoobay baa iska jira oo ummadda ka jira dhulbahantaanu nahay dhulbahantaanu soconay dhulbahantaanu ka soo shiray danta dhulbahantaanu soconay mid kale aanu soconaa ma jirto waxaan ku ballan qaadnay markaan ka soo baxayno qurbaha inaan carrada dhulbahante cid kastiba ha joogto qof kastiba aad iyo aad baan idin salaamayaa shirka Yurub ka yimi American ka yimi yaa goobaha ka u tihiin ee dhulbahante waa soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo waji farax leh iyo kalgacal baan ku soo dhaweynaynaa annagoo ah reer Woodward oo dhulbahanta waftiga noo timi ee qurba joogta ah ee lagu sheegay fidaayiin inay yihiin aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa dhulbahanta oo dhan oo isku dhufan cira ka maqanayn mar haday maanta noo yimaadeen farxad weyn bay noo tahay annaga farxad aan weliga ilaahay bay noo tahay farxad waxay noo tahay taariikhda galaysa waxa weeyaan nin daaqtay waa jira laakiin qabiil daaqtay ma jiro waana dhulbahante nin kastaana wuxuu jecel yahay magacii dhulbahante ama magacii daraawiishta la sheegi jiray la oran jiray dhulbahanta wuxuu ahaa dawladdii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee kacday ee dalka Ingiriiska la dagaalantay baadaas taageerana wana soo dhaweynana wana taageersanahay dhammaan deegaanka Woodward iyo deegaanka dhammaanba intii odayaashii hore tiriyeen oo dhan annagu waa taageerana waa qodob kulamadan ay la yeelanayeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanada ay kormeerka ku soo mareen ay dhammaantood waxay kala kulmeen wajiyo farxadeed oo markaasi si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanadii ay kormeerka ku marayeen iyadoo gudidana ay maanta u ambabaxeen deegaanka Tukaraq oo dhanka bari ka xiga magaalada Laascaano halkaas oo ay ka dhigan doonaan fadhiisinka ay shir ku qaban doonaan islamarkaana ay ku iclaamin doonaan goobta rasmiga ee lagu qaban doono shirka Khaatuma qaybtiisa labaad gudidan qabanqaabada shirka Khaatuma ayaa guddigood waxa ay yihiin qurbajoog u dhalatay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn islamarkaasna kormeero iyo weliba qiimeyn ku sameynayay gobolada Sool Sanaag iyo Cayn iyagoo markaasna ujeedka socdaalkoodani ahaa halka lagu qaban doono shirweyne ay u dhan yihiin dhammaan waxgaradka siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn shirkaasi oo lagaga tashanayo danaha iyo masiirka ummadda Sool Sanaag iyo Cayn degta shirkii warbajoogta dhulbahante ay yeelatay waddanka Ingiriiska oo aan ku lafaguray bal wixii marka ugu horeysay annagana dhaxyeelay aan ku gaadhnay talo wanaagsan oo midayna gacmaha aan isku qabsanay shirkaas oo la baxay Khaatuma waxaanu garanay ama la gartay ama qurbajoogta dhulbahante garatay in shir lagu qabto dalka gudihiisa carro dhulbahante aan meel kale ahayn wada tala isugu kaalaya hadday yartahay iyo hadday weyn tahay waa intaa waxba uma baahna faahfaahin waxaan kale oo aad iyo aad aan bagoodin ugu soo jeedinayaa qurba joogta naftooda iyo maalkooda u huray sadcaalka iyo tahajudka ku soo bixiyay sidii loo heli lahaa dhulbahanto oo mid ah dhulbahante marka uu midoobo markaas ayuu wax qabsan karaa waxaan
ilaahay baa mahad leh waxaan u mahadnaqaynaa waftida ilaa London iyo meelo kale oo fara badan ka iyadoo shirkana uu qayb ka noqon doono shirarka isugu yimaadaan beelaha Soomaaliyeed oo ay kaga tashadaan aayaha ummadahooda iyadoo shirkana ay si weyn u soo dhaweeyeen dhammaan dadweynaha ku aftirsada beelaha daga Sool Sanaag iyo Cayn shirkan la qabanqaabinayo ayaa waxa uu qayb ka yahay qodobadii ka soo baxay shirkii qaatumo qaybtii koowaad ee lagu qabtay ariga Ingiriiska gaar ahaan magaalada London kaasi oo isugu yimaadeen qurbajoogta iyo waxgaradka deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn ku aftirsata iyadoo qodobadii ka soo baxay shirkii qaatumo ee lagu qabtay Ingiriiskana ay ka mid ahaayeen in shir labaad lagu qabto gudaha dalka maxamed cismaan cabdinuur xaashi telefishinka caalamiga Somali Channel magaalada Laascaanood